marka mar walba ku dadaal inaa asadka aad soo gadato aana ka fogaato wax walba mas'uuliyad badan ku saarayo oo expenses badan ka bixinayo oo waxa dhici karta dad qaarkood inay dhihi doonaan anaga wax dhul ama guri lacagteena ma gaarsiisan waxaan xasuustaa qof oo aan isku dhownahay aan aqaano mar walba qarash walba ama income walba soo galo wuxuu ku bixin jiray ama meel ayuu dhigin jiray oo $10 ayuu meel dhigan jiray ilaa ugu dambeyn $100 ay u gaartay kadib muxuu sameeyay qofkaas wuxuu furtay miis oo nanac ama shukulaato markaas uu saarnaan jirtay kadib wuu sii hormar ilaa hadda wuxuu joogaa qofkaas bakhaar ayuu leeyahay muxuu ku gaaray qofkaas wuxuu gatay asad ayuu gatay mar walba mas'uuliyad badan qoort ma saaran oo expenses badan ka bixinay sidoo kale waxaan aqaanaa qof arday ah oo iyana lacag aruurinayo lacag badan uu aruurin jiray ugu dambeyn lacagta waxay u gaartay $1,000 u gaartay muxuu sameeyay $1,000 wuxuu ku soo gatay iPhone ayuu ku gatay maxay isku dhaafeen ma taqaanaa labadan qof fikirka mid mustaqbal dheer ayuu rabay midna wuxuu rabay mustaqbal dhow soo fiiri labada fikir si u kala duwan yihiin iPhone-ka waqtigiisa wuu dhamaanaya laakiin maxaa waay asadkaada meel fiican hadaa maal gashatid wixii asigaaba ku abuurayo mishaar cusub ama dakhli cusub ku soo gelinayo marka mar walba hadaan rabno inaan isku filnaansho maaliyadeed aan gaarno mar walba maal gasho asadkaada asad soo gado mar walba midaan kula talinayo midaas waay hana u fahmin midaas inaan ku diidanayo baabuur qurux inaad ku socotid ama mobile qurux badan inaad gadatid kaliya waxa mustaqbal aan inaad u fikirtid waay